aqoon-yahanku hadduu aqoonta caloosha ka horumariyo aqoon-yahan maaha. maxaan cunaa haddaad u noolaato hadday noqoto aqoontaydu maxay goysaa suuqa marketka maxaan ka gooyaa haddaanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin waxay qiimaynaysaa uu noqdo see lacag lagu helaa walow badda ku dhacnee qiimo male markaa maaha aqoontii cultural revolutionka samaynaysa maaha. hadday aqoontu noqoto aqoon-yahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo sultadu iibsan karto dowladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan aqoon-yahan maaha. hadduu aqoon-yahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo toban oday intay kuu yimaadaan yidhahdaan reerku saasuu damcay waa lagu iibsaday. hadduu aqoon-yahanku noqon karo qof la bajin karo oo ama sultada jirtaa bajin karto baqogelin karto ama cultureka bulshadu ay leedahay ee xun cultureka san waa inuu ku baqogeliya waa inaad ixtiraamtaa inuu ku baqogeliya maaha laakiin cultureka liita uu ku baqogelin karo aqoon-yahan maaha ama aqoon-yahankaan rabnee wax beddelayay maaha. sida ogeed dhibtayna haysata caalamka saddexaad waxaa ka mid ah aqoon-yahan badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado ee aan aqoontu wadin. aqoon-yahan badani wuxuu noqday mid aan ethics lahayn mid aan akhlaaqiyaad lahayn ee maxay xagga shilinku jira uun jira. aqoon-yahan badani wuxuu noqday innagu dhaqankeenna ka soomaali ahaan ka umma soomaaliya dhib daakhiliya baynu leenahay dhib gudeed iyo dhib khaariji ah bini aadam walibana labadaa dhibood buu leeyahay. dhib daakhiliyaynu leenno oo ah inaynu qabiil u qaybsannahay siyaasaddeennu waa qabiil mararka qaarkood waxaan is idhahdaa axsaabta siyaasiga aynu leenahay maalan talow haddii ragga u taliya la kala bedelo reeruhuna sooma kala guureenu haddii nimanka madaxda ka inta mid la qaado xisbiga kale la geeyo reerkuna waa uun xagga kale ka soo wareegi lahaa. waayo haddaynan ideology haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysannahay ma aha inuu qofkani xun yahay anugu kama hadlayo laakiin waxa weeyaan haddaynu shakhsana qof daba soconno aynan mabaadi' daba socon iyo aragti qofka in la raaca wax xun maaha laakiin qofku waa inayn waxaan ku raacsanaya mabaadi' iyo aragti tahay. laakiin hadday noqoto inaannu isku reernahay inaan ku daba socdo dee aqoon-yahana sheegana magac kala sheega markaa hadhow ha odhanin literate man baan ahay ama learned peoplekan ka mid ahay ama scholar baan ahay ama academic baan ahay ama intellectual baan ahay erayada tirada badan ee af ingiriisiga meesha laydinku sheego ha sheegan wax kala sheego min reer hebel aan ahay iska dheh odayadu saasay rumaysnaayeen waxaan inooma sheegtaan waa suldaan waa caaqil waa nin reer hebela reer hebel waxay ku go'aan buu ku go'aa khalaas isaga kamaba qasnayn marka horeba duubkiisuu sitay. laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay aqoontu waa inay wax soo kordhisaa waa inay cultural revolution samaysaa waa in bulshada aan bedeli karnaa. laakiin anigu waxaan rabaa inaan xor ahaado meel laga xoroobana caqligaa ugu fiican marka koowaad caloosha inaad ka xorowda inaad caqliga ka xorowdaabaa ka roon markaad caqliga ka xorowdaabaad calooshana ka xoroobi kartaa. waxaan u baahannahay markaa taxadiyaadka khaarijiga ama challengeska dabadda ka imanaya inaan ka xorowno. challengeska dabadda ka imanaya waagii hore duwal baa wax gumaysan jiray xoog ku qabsan jiray iminka iyo dubuun waa sida quraanjada ay hadda u socdaan. quraanjadu maxay way tamar yartay laakiin xagee ka soo baxdaa meel kastoo jeexan unbay fudh ka soo odhanaysaa haddaan iska gufaynindi. bulshada tasaduceeda bulshadu hadday burburto quraanjo dhan baa ka soo dhex baxda. bulshada soomaaliyeed way burburtay culturally bay burburtay dowladnimay burburtay dhaqan baa burburay
diin baa xataa burburay dadnimadeedii baa burburtay dhaqaalaheedii baa burburay wax kastoo ay soo qaadatay way burburtay dadkii dabadda ka ahaana way ka soo dhex tooseen